نور بقاري واد محسن تهي توغشادو waxa ay dhacday 10kii fiidnimo ay xalay xilliga magaalada Toronto kolkaasoo dad meel kafee lagu cabab fadhiyay banaankiisa oo qof qorisita uu rasaas ku furay waxa dhintay dabcan 3 qof oo eedeysanaha uu ku jiro halka 12 qofna ay dhaawacmeen saddexda dhimatay mid kamida oo ilmo yar oo 8 ilaa 9 u dhaxeeyay waxa uu ku geeriyooday isbitaalka sida ay sheegeen booliska madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders oo warbaahinta la hadlay waxa uu xusay in baaritaan wali uu socdo oo aanan xilligan wax rasmi ah aanay sheegi karin sidoo kale waxa uu ka codsaday dadkii meesha ka dhawaa in ay markaa booliska iyo kuwa dambiyada joojiya ay ku wargeliyaan sida ay wax warkeen duqa magaalada Toronto John Tory oo laftiisa warbaahinta la hadlay waxa uu tilmaamay in cadeen walba ama macluumaad walba oo yar xitaa oo ay hayaan dadkii meesha ka dhawaa in ay booliisku caawin karto oo markaasi la ogaan karo waxa ay arintan dhaliyay booliisku mar su'aal la weydiiyay sababta ninka waxa uu dhintay toogashada sameeyay iyo cidda dishay waxay tilmaameen in meel dhowr talaabo u jirta halka rasaasta marka uu qofku uu ku xabadeeyay dadku in laga helay meedkiisa sidoo kale waxay soo bandhigeen muuqaal nin jaakad madow sita oo markaasi dadka xabad ku furaya si aan kala sooc lahayn marka dhacdadan ayaa waxay ku noqotay liyaab dadka magaalada Toronto iyadoo dadku ay iska qorraxaysanayeen ama ay banaanka ku fiidsanayeen rasaas la isagu furay sababta ma cadda ilaa ay hadda lama xiriirin hadii ay noqon lahayd mid qofka inuu xanuunsan yahay ama mid argagixiso intaba madaxda magaaladan iyo guud ahaan dalkan ra'iisul wasaare Justin Trudeau Premier Doug Ford ama madaxa gobolka Ontario Doug Ford duqa magaalada iyo dhammaan madaxda kale waxay cambaarayeen falka iyagoo tilmaamay in baaritaan kadib la soo bandhigi doono waxyaabaha dhacay waxa xusid mudan Nurow in jimcihii 200 oo askari oo dheeriya oo habeenkii socod ku mar xaafadaha markaasi la howlgeliyay kuwaasoo la sheegay inay shaqeynayaan 8 toddobaad oo kaliya 8daas toddobaad waxa ku baxaya 3 milyan oo dollar halka 4 milyan oo dollar oo kale qalabeyntooda oo kaamirooyinka meelaha lagu xirayo iyo qalab casri ah oo dhawaqa rasaasta maqlaya in lagu qarash gareynayo la sheegay marka su'aalo badan ayaa ka iimaanaya dhacdadan iyadoo imika on 2 maalin ka hor ciidamadaasi la howlgeliyay oo 8 wiig gudahood ku baxaysa 8 milyan oo dollar wixii ka soo baxo arrinkan dabcan boolisku waxay la wadaagi doonaan warbaahinta